heeska maanta la fasiraya waa rugjaw dildibaane waxaa inoo jilaya aktarada Shahrukh Khan iyo Kajal fanaanka codku sidoo kalena waa Udite Hinariya filimkuna waa Dilwale Dulhaniya Lijaynge oo macnihiisu yahay geesiga qalbiga leh ayaa qaadan doona carsada heeskan Shahrukh Khan baa wata adeeshadu waxba kuma laha Shahrukh Khan heestu bilaabaya wuxuu leeyahay joogso istaag midda qalbigayga waa shay aan wax ku weydiiye isagoo heestiisa sii wata wuxuu leeyahay ma gabadh baa tahay mise sixir mise waxaa tahay udug iyo sakhrad ilaa wadiga qalbigayga soo jiitay waa adiga anigu ku doonaya ku daba ordaye bal maxaa tahay wuxuu leeyahay haddii aad soo dhawaato waan ku taaban waana arki waxaa tahay ilaa wakan heesta soo leh ma sixir baa tahay ma khamrad baa tahay ma udug baa tahay ilaa wadiga soo jiitay heestana ay weli kusii socono intii macaanid way harsan tahay Shahrukh isagoo heestiisii wata wuxuu leeyahay halkan iga eegaysaa wayna qoslaysaa iyadoon waxba ogeyn yacni jacayl baa haya waxaan iga heesinaya waxaan iga jaasinaya la badboodaya waa jacayl anna halkanaan taaganahay oo wadnahan isaya wadna isagoo iga geridaya yacni jacayl dartiis oo ay wuxuu ka baqayaa in laga qaado oo jacaylkiisa waayo maadaama uu yahay wiil dhalinyaro ah hadda soo kacay jacayl sameeyey wax jeclaaday wuxuu leeyahay iyada deganaashiya ka muuqda iyada warba kama muuqdo maxaa siya wuu isweydiinayaa iyada gabadhan aan jeclahay deganaashiya ka muuqda warwar kama muuqdo waka heesti waa si wada weli waa wataa weli wuxuu leeyahay way iska degan tahay qof dhibi ka muuqato maaha dhibi laakiin waxay ka jirtaa afkeedu cabasho iyo maag mooye wax kale maba yaqaan daawade haddii aad ku cusub tahay youtube-keena fadlan subscribe saar fiidiyogana like saar si dhiirigelin noogu noqoto sidoo kale haddaad awoodo ama aad doonayso fiidiyoga si shargale si asxaabtaadu kula daawato annaguna aan ugu helo dadyaabo badan haddii baanadaydu shaqayso waxaan isku dayi doonaa inaan la haasaawo oo shukaansado ragga inaan rag nin kastaaba wuxuu adeegsadaa xeeladiisa u gaarka ah oo hablaha ku soo xirogeliyo kuna kasbado markan Shahrukh Kajal ayuu ku tufayaa is-adkayn iyo isqallafin iyo ismacaanin ayuu ka dareemay marka wuxuu leeyahay xafladda adigu kuma qurux badnid meesha la joogana waa xaflad weli uu ku sii tufayaa oo uu ku shidayaa wuxuu leeyahay maxaad afka keliga la taagaysaa maxaa dadka ka dhex saaray maxaad isla macaaninaysaa oo afka la taagaysaa way afka taagaysaayo wasqalufaysaa inuu wax iska dhigaysaa balaa isagoo uu ka xanaqay markuu maanta soo hadlay soo hees u soo gaaray soo duci weeday ayuu ku tufayaa iminkana in ragna ka daawa lagu yaqaan inuu hablaha ku xumeeyo markay u bareedho oo diido iminka shaxdi uu bedelay markuu gabadh waxba ku soo akhriyay uu ka masirsiinaya oo ku tufaya wuxuu leeyahay ta qalbigaygu doonayo waa saaxiibada marka saaxiibadeed ayuu ku dhangadeynaya ayuu leeyahay adigu askar hal ahaan kartaa ee ka qalbigaygu doonayo ta qalbigaygu baahan yahay ka qalbigaygu jecel yahay oo maanta dhan u heesayo waa saaxiibada heestiisii ayuu weli sii wataa wuxuu leeyahay haddii iyadu ay ogolaato waa saaxiibadaaye laabtan gelin doonaa oo laabtaydan ku qaadi doonaa waa gabagabadii asxaabta sharafta leh aan heesta waxaan ku sameynay waan gogoynay intii dhextaalka soo noqonaysa ayaan ku dhex saarnay heestaasina saasay noogu dhamaatay haddii youtube ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar videona like siina shirkada mahadsanid muuqaalkaasina halkaas
ayuu noogu dhammaaday heestan iyo barnaamijka xiga inta ku kala dumin doono waxaan leenahay bye bye.